mana aqbali toonno markii qofkaas maxkamad aan keenno oo aan xukunno xukun adag ku dhaco cid daba socotana aqbal mayno haddii alla idmo waa barnaamij aad u foolxun waa barnaamij sida runtii magaalooyinka waaweyn ba aan ka jirin halkani oo ah deegaanka Ceel Qorax isla markaasna kamid ah deegaanada hoosmaha degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud waxaa maanta soo gaaray saraakiil oo hogaaminaya taliyaha booliska degmada Gurceel iyo soo kale taliyaha ku-xigeenka degmada saraakiisha ayaa ujeedka u yimid halkan waxay ahaayeen codsi ama cabasho uga timid dadka deegaanka taasoo ku aadan in dadka deegaanka ay ka cabanayaan dhalinyaro ku sugan deegaanka kuwaas oo deegaanka geystay falal kala duwan kuwaas oo iskugu jira dhac iyo soo kale falal tuuganimo ah oo ay ka geysteen deegaanka saraakiil oo hogaaminaya taliyaha booliska degmada Gurceel Gaashaan Cismaan Cali Huday ayaan waxay soo gaareen deegaankani waxayna la kulmeen qaybaha kala duwan ee bulshada deegaanka kuwaas oo iskugu jira culumaad diinka iyo soo kale odayaasha dhaqanka ee deegaanka ugu horeyn waxa halkan ka hadlay gudoomiyaha deegaanka Ceel Qorax iyo soo kale qaar kamid ah odayaasha deegaanka ayagoona ka hadleen sababta ugu yeereen ciidanka booliska degmada Gurceel oo hogaaminaya taliyaha booliska degmada Gurceel Gaashaan Cismaan Cali Huday odayaasha iyo soo kale gudoomiyaha ayaana waxay soo saareen qodobo dhowr ah kuwaas oo ay la wadaageen saraakiisha madaxda aan codsiga u dirnay ee noogu timid si fudud wanaagsan sharaf leh aan dareensanahay magaaladii degmada aheyd oo ay joogeen inaysan cidna u reebin madaxa ayagoona tixgelina dalka deegaanka iyo codsigeena waa mahadsantihiin mar kale waa mahadsantihiin waydin soo dhaweynaynaa waydin baahanay mas-uuliyadda awal adinkay naga keensareed haddana cabashaana ayadoo faahfaahsan dhammaystiran go'aamadii ugu dambeeyey leh ayaan idin siinaynaa inka codsanaynaa tilaabo la yaqaan saacad walba habeen walba daqiiqad walba inaad ka qaadaan tuuladan aan ka ahay gudoomiyaha qodobka koowaad waxaana dhibay wax la yiraahdo muqaadaraadkaas wuxuu ka bilowday qaad waxaa ku xigay kaniini waagi hore waxaan aqoon jirnay kaniini loo cuno xanuun hadda waxay mid waali loo cuno oo dadka lagu dardarayo wuxuu noqday qofku marka inay wax layda rabto inay asaga soo qaadato cunto waxaa la ii sheegay wax la leeyahay buuflo waa ka jira carrada oo aqal meel ku dhisan dakaniina la soo cunaa dardara sidii geeli waxaan arki jirnay geel waa buuflo leeyahay laakiin hadda dad saasa soo bedelay iyo kaniinigaas oo alaalax ay sameynayaan muqaadaraadka awal waxa cuni jira dad waaweyn hadeer waxaa bedelay cunug yaro 10 jira oo aad dugsi ku ogeed iyo nin odaya oo reer ku ogeed iyo gabar aad dhaqan ku ogeed hal qof oo saaraysa ma jirto dhibaato weyn oo la taagan yahay deegaankii uu saameeyay bulshadii uu duleeyay qofkii sharafka iyo karaamada lagu ogaay waxa aad ku ogeed ba maaha qof kale oo nooc kala hay noqoto qaadka waxaan isleenahay asagaaba dhalay waxay leeyihiin hooyo iyo aabbo asaaba aabbo waxaan isleenahay deegaankii uu duleystay dhaqaale ma jiraan qofkii ayadoo ilmaheedii cunaaya qadaayana waxa arkay ayadoo cunahay la meel fadhido muqaadaraadku isugu jira ama qaad ha ahaado ama kaniini ha ahaado ama wax la mido oo darooga ha ahaadeen waxaan ka nahay cabasho waxaan ka rabnaa ciddii hadii laga wacdiyo wacdigaas qaadanaysa in galabta ay culimadu ku wacdiso ciddii diidana talaabo sharciga laga qaado ku haboon oo ku qaadaan taliyaasha nala jooga Allah barakeeyo qodobka labaad waa tuugadii wax aysan gelin lama arko xoolaha waa la qalanayaa duurka lagu qalanayaa waa la gadanayaa waxaad arkay digsi meel taal oo dufan leh iyo dab meel ku shidan oo cid oo shidatay oo gooniya adiga aadan garanayn iyo lafa meel yaala ama maqaar aad arkaysaa waxaad arkay habeenadan waxaa jiray soo kordhay ilma dhadhel loo gabdhaha hurda in daloo yimid qoorta iyo gacanta la qabta iyadoo la qaadaha duurka loo qaadano ayaga la xada wuxuu xooleyba joogeen in la keenay waxa ku yaala meesha saad aragteen beero waxa la arkay dad ma waxa la arkay jiro xogaa iska ilmaaho maalintii iyo waxade 9 saac habeenimo ay soo dhacayaan wax ay deynayaan ma jiraan waa tuuga caalami ah oo ilbax ah
dhinacaysa tuugu hayna aysan jirin duunyaysan deynayn dadaysan deynayn beeraysan deynayn hal waxay deynayaan ma jiraan walow aan isleenahay waxa aan ka hadlayno qodobka hore ahaa ayaga ruuxooda waxay u yihiin lafdhabar u ah qodobka saddexaad waxaa waaye waxaa la yidhaahdo ool meeshaan hadda dhabarkayga waxaa ku yaalla barxad weyn barxaddaas waxaa isugu yimaada ciyaal fara badan meelo badan ay ka yimaadaan deegaanka deegaan aan ahayn ay ka yimaadaan meel waxay noqoto la isugu soo aado habeen dhawood meeshaan anoo ku hoyanaya 9 saac iyo xoogaa habeennimo way istuuriyeynayeen waana ciyaarayeen waqti dheer ay ahayd naftoodina kuma nabadgelin ummad u timaadna nabadgelime qodobka saddexaadna waa qodobkaas una cabashada ka nahay qodobka afaraad waa dhirta loo jarayo sida macna la'aanta ah wax lagu qabsanayo aysan jirin lana baabi'inayo waxaan ka cabanaynaa waa intaas afartaas qodob waaye waxyaabo kalena way jiraan laakiin hadda hordhaca waxa noo ah oo galabtan ugu talagalnay inaan meesha ka sheegno afartaas qodob waaye dhan kale macalin Umar macalin Maxamuud oo kamid ah culimada degmada Gurceel isla markaasna kamid ah culimada ugu waaweyn Ahlus Sunnah wal Jamaa ayaa halkan waxa ku soo jeediyay khudbad kooban taasoo kaga hadlayay falalka kala duwan oo ay ka cabanayaan dadka deegaankan Soomaalida markaad fiiridid hal qof oo aan aqoon hadii la weydiiyo maandooriya xunkiisa muxuu yahay ma jiro in qof aan aqoon ma jiro caamada heer waxay gaarsiiyeen tubaakada waa aragtay tubaakada aad kalmiye oo cunaa ninka tubaakada cunaa tubaakada masaajid in la galo xataa ma ogola intuu san gelin ka hor ayuu meel iska dhigaya wuxuu ka aaminsan yahay safiicnaan ogo waxaad markaa ogaataa nabigeena sallallahu alayhi wasallam uu ka hadlay ilaahay quraanka uga hadlay aqliga ilaahay ku siiyay ilaalin uu kaaga baahan yahay waxaa jira wax la kulliyatul khamsa ama kulliyatu sita marna waxa ma daruriyatul khamsa wa diintii oo ma soo galaysa wixii ilaahay diin soo dajiyay diin kasta samaawiye soo degtay waa ay ka hadasha kulliyadkaas waa xifdu nafsi naftoo la ilaaliyo maalkoo la ilaaliyo aqligoo la ilaaliyo diintoo la ilaaliyo iyo nasabka ama sharafkoo la ilaaliyo shanta arrimood ayay soo galayaan labadii arrimood hadda u daray ee xoolaha la xadayo iyo maandooriyaha hadii la yiraahdo aqliga hal la ilaaliyo maxaa laga ilaalinayaa waxa laga ilaalinayaa wax kasta aqligaada u dhimay hadii adoo ilaahay aqli ku siiyay aqligaadii bedesho ee xoolaha la mid noqoto waxaad ku dhacday dambi weyn oo kabiira ah dadka marka in badan khamrada waxay u yaqaanaan magaca khamra mid la yiraahdo balse nabigeena wuxuu sheegay sallallahu alayhi wasallam wax kasta ee maanka dooriya ama aqliga wax u dhiba waa khamru khamra dhamaanteedna waa xaraam ugu dambeyn taliyaha booliska degmada Gurceel gaashaan Cismaan Alhuday ayaa ugu horeyn waxa uu mahad celisay qaybaha kala duwan ee bulshada deegaanka asagoona sidoo kale sheegay in falalkan ay maanta la soo wadaageen laamaha amniga si uu dhaqsiyaha badan uga jawaabi doonaan ciidamada kala duwan ee booliska degmada Gurceel isla markaasina taliyaha waxa uu sheegay in halkan ay ciidamadu ay ka sameeyaan doonaan howlgallo joogto ah kuwaas oo lagu baadi goobayo dhalinyarada la sheegay in halkan ka geysanayaan falalka guracan oo lidka ku ah amniga waxaan rabaa odayaasha meeshan waxay ka soo gudbiyeen barnaamij aad u foolxun sida runteena aad u xanuun badan hadii uu deegaankan ka jirana u baahan fiiro gaar ah oo waqti kasta iyo xilli kasta report ka soo baxo in ciidamadu ay u diyaar garoobaan kana suuliyeen deegaankan marka deegaanka dadka hadda jooga haday odayaasha yihiin iyo dhalinyarada iyo dhamaan waa qurxan yihiin laakiinse ilmaha hadda dhaqanka xun laga sheegayo in si maaragtay wadajir ah la iskaga qabto oo laga tashadaa waa uga mahad celinaynaa laakiin waxa loo baahan yahay in hadii alla idmo aysan dhicin la hawjcalaysi wax la yiraahdo lama qarsan karo tuug gurigii jooga qof kaniini isticmaalaya maandooriye ah qof la leeyahay sid xoolihii ayuu wuxuu sameeynayaa oo tartara geedaha iyo hooyadiisa aabiis xataa haduu goor yimaado sida runtii waa waxaan aad ula yaabnay ilmihii yar yarka ahay oo deegaanka
gabdhihii dhedhanahay dad ay ka suurto gasho inay jawaan ku ritaan xaqiiqdii tuuladan mid aad u weyn ma ahan dadka joogan way is yaqaanaan waa shakhsiyaad waxa samaynayo haddeerna looma sheegin kiisasaa laga hadlay dadkii geystay lama sheegin hata waxaad moodaa xoogaay laxaw jeclaysi inuu weli ku jiro marka dadka weli waa loo baahan yahay laakiin waxaa ii muuqato xilligan wixii ka dambeeya qofka noocaasa aan cidi waxba ku falaynin cid wax ku falaysaa inaysan jirin annagu marka waxaan diyaar u nahay mar walba una shaqaynaa una taagannahay in deegaankuna wanaagsanaado dadka noocaasane aan ka hortagno haddii alla idmo 9 saaco habeenimo haddii guddoomiyaha deegaanka iyo odayaashiisu ay noo baahdaan oo kiisaskaas dad ku jira ay nooga baahdaan waxaan diyaar u nahay inaan soo dhaqaaqno si weliba aan lagu fahmi karin aan ku imaano haddii alla idmo ugana howlgalno waxaan rabnaa haddii alla idmo insha allah dadka noocaas ah qofku in inta la iska xiro meel la iskaga hayo annaga maaragtay booliis ahaan ma ahan mid maaragtay munaasab noo ah laakiinse waxaa noo munaasab ah qofka in inta la soo qabto shareecada islaamka la geeyo maxkamaddu xukunto xukun adag ee maxkamadeed lagu qabto markaasne hadda deegaanka say u soo laabatahay sahlanaa mayso wax sahlan noqon mayso haddii alla idmo marka annagu waxaan nahay safety maxkamadda ayaan nahay iyadaas ayaan ku shaqaynaa waxaan diyaar u nahay marka inta la sheegayaba xukun adaga ka yaala qodobo adaga ka yaala shareecada islaamka xeera baanka qodobo adaga ka tilmaanaysa maaragtay aayadaheedu tilmaamaya haddii alla idmo marka waxaan rajaynaynaa insha Allah in aan ka suulino deegaanka waxaan rabnaa hadeer dadkii la haayo in loo soo gudbiyo listankiisa waayo wax la dhowran kara ma ahan wax la dhageysan kara ma ahan waa barnaamij aad u foolxun waa barnaamij sida runtii magaalooyinka waaweyn baan ka jirin qof sidii xoolihii samaynaysa inay maaragtay guulow geela hal la celiyo waa guulaa maqli jiray yaa waxaasi waxa waaye wax aanan wali arag waaye marka hadii alla idmo insha Allah waxaan u baahanahay xilligaas uu guulowga yahay qofkaasi in la soo socodsiiyo insha Allah si aan ummadda uga qaban waxa weeye wax aad u foolxun oo waxaynan hadda ka hor maqal wali maynaan maqal wax noo dhiman waaye